kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino waad mahadsan tahay inta aynu hore u gelin barnaamijkeena haddii aad doonaysid inaad ku barato luqadda Englishka si online ah fadlan booqo website-keena fanacademy.com sidoo kale igala soo xiriir ciwaanada hoos ku xusan waad mahadsan tahay mar kale bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa talooyin kaa caawin doono inaad ku barato luqadda Englishka si degdeg ah barashada luqadda Englishka way fududahay haddii la raaco wadada saxda ah ee lagu baran karo luqadan sidaa awgeed ila wadaag talooyinkan kow waa inaad qaadataa course English ah ama ku baro si online ah ama adigoo tegayo ama xaadirayo goob waxbarasho ee lagu barto luqadda Englishka qodobka labaad waa inaad wax akhrisaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fudud ee aad wax ku baran karto ama ku baran karto luqadda Englishka waa inaad in badan wax akhrisaa waxay kaa dhigaysaa ruux hela erayo fara badan sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inaad barato jumlado iyo weedho cusub akhri buugaagta Englishka ah kuwooda weliba real Englishka loo yaqaano Ingiriiska rasmiga ah ee loogu talagalay barashada luqadda Englishka akhri buugaagta sheekooyinka ah akhri joornaalada kuwa daawacan iyo kuwa online-ka ah 3 daawo filimada loogu talagalay waxbarashada daawashada filimada Englishka ah waxay kaa caawinaysaa horumarinta Englishkaaga waxay kaa caawinayaan inaad maqashid sida ay u dhawaaqaan dadka u dhashay luqadda sidoo kale in aad barato erayo cusub waxaad daawan kartaa kuwa leh subtitle-ka oo qorayo hadalka qofka uu ku dhawaaqo sidoo kale waa iska xiri kartaa subtitle-ka taas ayaana ah sida ugu fudud aad ku baran kartid luqadda Englishka haddii aad ku mashquushid subtitle-ka akhrintiisa waxaa kaa tegayo dhageysigii luqadda taasoo aad uga muhiimsan akhrinta subtitle-ka dhageyso ereyada aad garanaysid si aad u maqashid dhawaaqooda saxda ah sidoo kale cabir ama qiyaas ereyada aad garanaynin adigoo ku cabirayo muuqaalka la sameynayo 4 waa inaad heshaa qof saaxiib kula ah barashada luqadda Englishka kaasoo aad mar walba iskula sheekaysataan luqadda Englishka 5 waa inaad heshaa dhammaan agabkii waxbarashada sida buugaagtii qaamuusyada ama dictionary-ga luqadda Englishka waa inaad heshaa dhammaan agabkii kaa caawin lahaa sida TV-gii laptop-kii internet-kii iyo wixii la midka ahaa 6 saa'id diiradda ha u saarin barashada grammar-ka waayo waxay kaa qaadanaysaa waqti badan aad ku hadli lahayd luqadda Englishka ugu hadal luqadda si qaldan dhib ma leh qof ayaa ku sixi doono kadibna waxaad u hadli doontaa luqadda si talantaali ah si faseex ah waayo uma fakaraysid ku hadlida luqadda Englishka ogow dadka intooda badan inaysan aqoonin grammar-ka saxda ee luqadda Englishka laakiin ay yaqaanaan ku hadalka luqadda Englishka marka sidaa awgeed ku hadalka luqadda diiradda saar dhib ma laha wixii qaldamo ayaga ayaa dib ka sixi doono dadka kugula sheekeysanayo ayaa ku toosin doono